28 bishii hore ee Janaayo mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Aadan Xadow isagoo oo ku xushay aqoonta iyo aragnimada uu leeyahay arrimaha diblomaasiyadda. munaasabad ballaaran oo maanta ka qabsoontay Muqdisho isla markaana ay siyaasiyiinta golaha wasiirada ay ku sugnaayeen golaha wasiirada xukuumadda xildhibaanada labada gole ee dhaqanka diblomaasiyiinta dhalinyarada haweenka iyo marti sharaf kale ayaa waxay ku taageerayeen xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Xamse Aadan Xadow. munaasabadan oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay xildhibaanada labada gole iyaguna soo dhaweeyay Xamse Aadan Xadow xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. dhalinyarada iyo dhammaan siyaasiyiinta ka soo qayb galay xafladan lagu soo dhaweynayo Dr. Xamse Xadow xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda mabruuq aan leeyahay duco naga istaahilaa waa u duceynaynaa insha Allah in Ilaahay la garab galo. intaas kadib salaamka bacdi waxaan rabaa inaan xilka iyo mas'uuliyadda loo magacaabay Dr. Xamse Aadan aan ugu hambalyeeyno uguna duceyno waxaa lagu saaray mas'uuliyad qaran. waxaan ilaahay kaaga rajeynaynaa xilkaaga inaad u gudato sida ugu wanaagsan. mas'uuliyaddu waa wax culus inaad noqoto kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa ugu shaqeeyo. leenahay nin mudan ee astaahila oo aan is leeyahay runtii xukuumadda dalkana waxay garatay maanta dadka Soomaaliya wax u qaban kara ama meeshii loo dhiibo la filay inay ka soo dhalaalaan. Xamse aqoon durugsan aan leeyahay waa nin aqoon-yahan ah, waa nin runtii wadani ah, waa nin markii uu ka tagay waddankana mashaariic badan intuu ka fuliyey dad badan shaqo abuur u sameeyey. raaskiamboli dadkaan weynaa u sheegaya wuxuu ka sameeyey mashaariic kalluumaysi aad u waaweyn. marka waxaan leenahay walaalkeena hambalyo shaqada culus Ilaahay ku fududeeyo. meeshaas fiiro gaar ah u leeyahay wax badan dulduleelyo ah in waxaan dareemaynaa dibadda waa lagu yeelayaa dadka qaraabada waa isaga yaraayeen. marka dibaddaas waa arki doonaa qaraabada ay u fudaan doonto insha Allah hadii weekend insha Allah waa salaamantii maharin. waxaan rabaa inaan marka hore u duceyno walaalkay Xamse oo runtii aniga saaxiibkay qaas ah muddo badan aan isnaqaanay. waxaan ku aqaanana ay tahay daacadnimo iyo taljacayl iyo ammaano. runtii waa dareemi kartaa nin dhalinyaro ah oo adduunka meesha ugu dambeysay ugu soo tegay inuu u adeego dadkiisa iyo dalkiisa ku dhaawacmay oo lug ugu jabay maalintaas goobjoog aan la ahaa. haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu amnigii iyo himiladii uu lahaa inuu dalka meel sare gaarsiiyo insha allah inuu gaarsiin doono. waxaan leeyahay xilka la iskuguma hambalyeeyo waa la iskugu duceeyaa. ilaahay waxaan ka baryaa inuu kugu asturo oo kaa dhigo nin ka soo baxa xilkiisa. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay guuleyso annagana garbahaaga nahay. talabaad waxaan u hambalyeynayaa walaalkay Xamse xilka sharafta leh ee culayska badan ee loo magacaabay ee loo doortay ayaan u hambalyeynayaa. waxaan kaloo dhankooda cuqaasha iyo dhaqanka goobta ku sugnaa ayaa u rajiyay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda mudane Xamse Aadan Xadow inuu xilkaale kula garab galo ayna garab taagan yihiin. marka waxaan leeyahay marka ugu horeysa walaal Xamse Aadan Xadow soo dhawow. xilka lagu idmiday qiimaha badan ee culusna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay kugu asturo aadna ku nagaato insha allahu tacaala. waa adduunya laakiin inaad muddo ku nagaato insha allahu tacaala. xogayaha cusub inuu yahay nin aqoon leh, inuu yahay nin ka soo bixi kara shaqada tan waxay muujisay inuu yahay nin magac Xamse uu wax badan u tarin uu meesha ku yimi kartidiisa iyo aqoontiisa. waana soo dhaweynaynaa aad baadna u mahadsan tahay. halkan duco baa lagu duceynayaa. gabagabada kulanka gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed imankana ah la tali sare gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan Xamse ayna garab taagan yihiin. waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda marka waxaan leeyahay waxaan ku garab taaganahay la dagaalanka argagixisada ee aad dalka ugu jirtid. mudan madaxweyne wax garab taaganahay inta ka dhiman argagixisaha dalka in laga saaro
madaxweynihii waxaa tahay dalka maxaa yahay u istaagay inuu ka saaro khawaarijta dhiiggacabka ah marka waxaan leenahay xamsana inuu qayb badan meelaha muhiimka ka geysan doono waa aaminsanahay iyada lafteeda xamsa waa nin muxuu ahaay muddo badan dalkan dhibaato badan uu soo maray sidii la sheegay argagixisa asagoo ka cararayo luka jabay marka hadda waxaan rajaynaa isaga ayaaba argagixisata kana kala dhexaysaa xamsa garabka allaha kale waxaan leenahay waxaan maqli jirnay markii la yaabay yaasiinka hadda markii la yaabay xamsa aan leenahay gunaanadkii xamse aadan xaado xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa waxaa u mahad celiyay siyaasiyiintii timid goobta iyo cid waliba oo kasoo qayb gashay taageerada xamse wuxuuna ballan qaaday in kursiga uu ugu fadhiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intaas markaan ugu tago mahad celintii xafiiskaas waa xafiis Soomaaliyeed wuxuu u furan yahay xafiis siyaasadeed ma ahan waa xafiis technical anigana waxaan madax u ahay qaybtaas technicalka ah xafiisku wuxuu furan yahay ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo Soomaaliya oo danka soo gasho waa gacmo furan ay ku soo dhawaanayaan waa u furan yahay adeegoodu u furan yahay taas haddii lacala shalayto qof lagu xiri jiray ama qof uu yaqaan uu raadi jiray laga bilaabo maanta uma baahnidiin waa meel idin furan oo anytime imaanka kartaan oo aad adeegaad ugu baahan tihiin inaad kasoo doonan kartaan kasta oo maqalkayga iyo muuqaalkayga yaqaano oo codkayga uu gaaro inuu u istaago la dagaalankaas nimanka arxanka daran ee ummadda ragaadiyey madaxda qarankana aan garab ku siino taasaan codsanayaa war dheer ma geli kari waa hambalyo waa maxaa dhihi jiray ducadiina iyo garab istaagiina iyo taladiina wasaaraddana way u baahan tahay xafiiskaygana waa u baahan yahay magaca iyo maamuuska aan ku fadhiyana waa ugu baahanahay waana mahadsantihiin maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan magaalada Muqdisho.